أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم وكيلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب كحرا فيسبوك كيغا بيج كيغا يوتيوب كيغا سناب شات كيغا فالور كيغا iyo friend kayga intaba waa idin salaamaya. qofkii dad soo invite gareyn karo soo invite garee. waxbaan rabaa maantayto inaan halkaan idinka sheekeeyo oo arrin xasaasiya idinka sheego. waxaan usoo galay page-ka, waxaan rabaa inaad page-ka barataan. aniga waxaa la yiraahdaa MMS. dad badan baa yaqaana oo social mediaha inaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo social mediaha aad iyo aad uga hadasha waxyaalo aynaan aqoonin iyo waxyaalo aad qarinayseen iyo waxyaalo aynaan maqalin intaba idiin soo bayaamisa ama idinka sheekaysa. waxaan rabaa in aan idin faahfaahiyo waxyaalaha jira. horta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan Facebooka kale inii aadi doono baan u malayn because waa yartihiin. always waxaan bartay marka aan soo galo oo dad fara badan ay soo galaan oo Facebookayga dadku aad u yaqaanaan, laakiin way iska baran doonaan YouTube-kay page-kan way iska baran doonaan insha Allah biidnillaahi alkariim. waxaan rabaa inaan halkaan idinka baro waxa anigu ahay. in badan baan iskiin baray, in badan baan isaga sheekeeyay. arrimo xasaasiyaan idiin hayaa. haddii aad maanta soo badan weydaan xasan ma ahan, berri baan idinka dhigi karaa, wax weyn ma ahan inaan idiin waxeeyo. aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Maraykanka waxaan deganahay 21 sanadood. in badan dad aan u sheegay way jiraan. social mediahana inta aan tooska ugu xirnahay oo aan programyo kasoo jeediyo oo aan soo galo oo aan toos uga hadlo waa hadda 10 bilood. intaasna waxaydnaan weligiin maqlin. waxaad la yaabtaan, waxaad ku faraxdaan, waxaad barataan, waxaan iska kiin bedelo. waxyaalo fara badan baa idiin sameeyey. dhibaatooyin fara badan baa iga soo gaara. cay fara badan baa iga soo gaarta. qoysas fara badan baa ku degay. caruur badan, dhalinyaro badan baa wax ka baratay. gabdho badan baa wax ka faa'iiday. rag badan baa wax ka bartay. waxyaalo badan oo inoo qarsoonaa oo aan la ogaan jirinin baad hadda barateen. wax qarintu inay fiican tahay baad u qabteen. dad badan baa hadda waxay barteen inay wax qarintu aysan fiicnayn. waxaasoo dhan waxaan uga sheekaynayay in aan dadkeena community-geena inaan idin baro waxyaalo badan inay inagu dhex jiraan. marka waxa la qarinayo ma diin baa oo diinta ogol in wax la qariyo, mise waa dhaqan, mise diinta iyo dhaqankii baan isku nooc u aragna. bismillah. koobkaygii MMS. waxaan rabaa in aan barano wax qarintu ma qur-aankay ku taallaa in wax la qariyo, inaan wax la sheegin, mise waa dhaqan. dhaqanka ma laga gudbi karaa? kitaabka lagama gudbi karo. diinta qur-aanka ku qoran oo kitaabkeena ku qoran in aan ka gudubno waa khalad. laakiin wixii dhaqan ah waa ka gudbi karnaa, saan aaminsanahay anagu. marka waxyaalaha badan oo khaladka ah oo inoo qarsoon oo inagu dhex jira oo aynaan ka hadlin, oo caruurtu ku dulman tahay, oo raggu ku dulman yahay, oo dumarku ku dulman yahay, oo bini-aadanimada kasoo horjeeda, oo khaladaadka ah. qofka xun, waxa fiican, waxa xun, intiiba wax waa ka bedeli karnaa. waqti bay qaadanaysaa, laakiin
waqti kasta ha qaadatee waa inaad og tahay inaad guulaysanaysid, waa inaad ka warqabtid inaad guulaysanaysid. That's why baan waxaan u rabnaa inay time badan igu qaadato hadday rabto, laakiin I have a big picture. Aim high, meel dheer fiiri. Kad gaariga wadid weligaa hortaada iyo kaliya lama eego, waa inaad meel dheer fiirisaa. Nalkaa kaa horeeya ma casaan buu noqonayaa, how long buu noqon karaa, ma waa inaad mar walbaba aad meel dheer eegtaa. Okay, waa inaad mar walbaba indhahaagu wareegaan, waa inaad mar walbaba ogtahay waxyiga maxaa isbedelaya. dadkeeni hore oo reer miyiga ahaa saadaal wax la yiraahday sameyn jireen, cimiladay fiirin jireen oo roob baadi doona oo sanadkan abaar buu noqon doona. dad wax bartayna ma ahayn. saadaasha hawada waa qolyaha hadda sheega hawada ka wadarka ka sheekeeyo kale. maxay ku leeyihiin I think so, waa shur ma dhahaan, because waa waxay barteen waa cilmi. laakiin kuweeni baadiyaha iyagoon cilmi baranin buu inta banaankaas gogol dhigto buu cirkaas fiirin jiray. dayax maanta xidigtaas iyo xidigtaas iskar fuulay, taasaa taagees ka martay, dayaxaasaa waxaa sameeyey, xidigahaas iyo dayaxaasay wax ka fiirin jireen. waxay raaci jireen, waxamay raaci jireen. laakiin isagoo geeliisa la jooga bay dadku haddana kala caqli badnaayeen. qofku isagoon wax baranin buu ilaahay wuxuu siin karaa caqli aad u fara badan oo uu qof kasta oo wax bartay kaga caqli badan yahay. soo ilaahay caqligu bixiyaa ka qaalisan midka lagugu shubay, adigoo labadaba isku darsadayna kaba sii fiican. so waxaad arkaysaa dad wadankan u dhashay oo aan muslim ahayn, haddana markaad fiirisay u dhaqmaayaan muslim badan ka akhlaaq badan, muslim badan oo aad uga akhlaaq badan baad arkaysaa. qofka akhlaaqdiisu diin kuma xirna, asagooban diinba haysan baa laga yaabaa, muslim ha ahaado christian ha ahaado, waaba dad diin haysta. kuwa aan diinba haysan baa jira oo markaad fiirisid akhlaaqiyaadkoodu ka akhlaaq fiican yahay. aadaabtuna wax walba bay ka fiican tahay inuu qofku aadaab leeyahay. waxaad ogaataan qofka aadaabta leh meel dheer buu gaaraa, meel dheer buu gaaraa. laakiin qofka bila akhlaaqda ahi meel dheer ma gaaro. so cimrigiisu xataa ma dheeraado. dadka akhlaaqda xun u fiirsada way cimri degdegaan, cimrigoodu xataa ma sii dheeraado. karaahiyaa ku dhacda, waa la nacaladaa, waa la habaaraa, waxbaa laga sheegaa, waa la caayaa. mar walba waxa uu qofkii arkaa ka naxa, iyo qofkii arkaaba ku farxaayo. qofka laga naxo waa shaydaan, ama insi ha ahaado ama shaydaan ha ahaado, waa shaydaan qofka laga naxo. marka waxaan rabaa maanta anigu waa isaakiin warramay, hooyadaasaan ahay, meeshaan degan Minnesota. in badan social mediaha idinkula xiriiraysay, single mother ah, caruur dhashay. okay, baynka caruurta iyo baynka waalidka iyo baynka ilmaha iyo dhibaatada dhacaysa iyo dalkeeni iyo qurbaha iyo ilmaheena dhibaataysan iyo wax walba way taabtaan. laakiin waxaan taraygareeyay anigu aan meel la fariistay in aan taraygareeyo inaan wax bedelo. waqti walba ha igu qaadato in aan dadaalo si aan wax u bedeli lahaa. ma samayn karaa? yes we can, waa samayn karaa haddii allah subxaanahu watacaala moralka aan wato igu garab galo. yes we can baan ku leeyahay. so maxaan diidanahay qaladaadka, maxaan diidanahay dulmiga, maxaan diidanahay edabdarada, maxaan diidanahay cayda, maxaan diidanahay xumaanta, maxaan diidanahay khaladaadka la kala gelaya, maxaan diidanahay ilmaha sariirta ka ooyaya, gabdhaha sariirta ka ooyaya. waxaasoo dhan waan kasoo horjeedaa. laakiin see uga hortaga? ma soomaaliyaan joognaa? maxabad baa soomaaliya laisu qaadan jiray? xabad laysuma qaata. meeshaan waa la hadlaa, meeshaan waa la hadlaa. jaajka iga dhacaya waxyar suga. meeshaan waa la hadlaa. haddaad hadashid waxbaa hadal ku bedeli kartaa. haddaad dagaalantid laakiin jeel baad aadaysaa. soo wadankan afkan waa la fura, soo gacantaadi laakiin waa la xira. marka waa inaad caqligaaga aad isticmaashaa, waa inaad tambarkaaga ilaalisaa, waa inaad ilaalisaa kulaylkaaga, xanaaqaaga, dhibaatada waa inaad ilaalisaa. bini aadan baan nahay, ma noqonayno dad mar walbaba 100% ma noqon karno. marka maxaan rabaa maanta inaan idiin sheego, magaaladan waxaad maalmahan aada ugu arkayseen ama social mediaha aada ugu dheer nin la yiraahdo cabdixakiin cusmaan nuur. waa nin magaaladan Minneapolis degan, waa nin wheelchair saaran, waa nin in badan xoogaa anagoo degan oo ganacsi ku haysta imaaday. nin yar muu ahan, waa nin weyn. wadankan da-beena wadankan lagu soo galaa, waa wada ognahay.
da-da beenta inaad rumaysatid ma fiicna inaad taa tahay aad aamintid baa la rabaa. okay, cabdixakiin magaaladan wax badan buu ku hayay, dhaqan xumo badan buu ku hayay, dhibaato badan buu ku hayay, dadka jooguu dulmaa, waalidiintuu dulmaa, hooyooyinkuu dulmaa, caruuruhuu dulmaa, odayaal waaweyn oo magaaladan joogaad arkayseen garaadyadoodiibuu dulmaayey, ehelkiisibuu dulmaayey, dad kaloon ehelkiisa ahayn buu dulmaayey. wuxuu inta badan kolley anagu aan aragno waa ummadda Soomaaliyeed inuu aad u dulmo, inuu aad ugu dheerdheereeyo, inuu aad Soomaalida marka dhibaatada ina haystaan idin sheegaya. qofka khaldan asxaan baa loo sameeyaa, marka ugu horeysa khalad ku aragtaan baa la qabtaa, sow asagay dan u taha. laakiin qofka marka aad wixii u daysid oo u daysid oo u daysid wuxuu dareemayaa in uu leeyahay power. cabdixakiin gabar baa social mediahan soo gashay maalin, maanta waa ku dheeraanayaa facebookayga, aad baan ugu dheeraanayaa maanta. gabar baa soo gashay social mediahan buu soo dhigay, ma soo gelinin, gabar xanuun nabar rakaasankaa ka gaaray, surka ka jabtay, qabiilna markii dambe aan ogaaday la igu yiri waa gabar dhulbahanta ah. gabadhaas ohaya lagu dilay, nin baa ohaayo ku dilay oo ku gacan saaray, ninkaasi cadaan buu ahaa baa la igu yiri. anigu ma daawanin sheekadooda, laakiin gabadha aan arka ramadaan bay ahayd, gabadhaasuu soo dhigay, wuxuu leeyahay gabadhaas waa tuugo, gabadhaas waa sidaan, gabadhaanu dukaan bay xadaysay, gabadhaanu ninkaanu maalimo badan bay xaday, gabadhaanu saan yeeshay, gabadhaas maskiinta been buu ka sheegay. gabadhaas anigu markaas ayada ah qolo ay tahay ma aqoonin, qolana dadka uguma hiliyo, qofka waxaan u hiliyaa dulmanayaasha waa u hiliyaa. gabadhaas aqoonna uma lahayn, gabadhaan aqaanina ma ahayn. gabadhii baan qaaday, waxaan la hadlay, gabadhii baan qaaday, social mediahan wax kusoo qoray, waa soo saaray. gabadhaas waxaas la sheegaya waxba kama jiraan, gabadhaas waa gabar masaakiinada, nin baa dilay, saasaa la yeelay, kanaa la yeelay, gabadhaas waxa laga hadlaaya ma ahan baan iri. maalintaas laga bilaabo I think inay ahayd soonkii bay kollay ahayd, juun bilowgeedi miyay ahayd, baalarifkii laygu bilaabay faramnaawan caruurtayday ka shidan tahay. haddana iska da anigii waalidkaygi dhintay ka soo kace, caruurtaydii bay ka shidan tahay. so waxaasi wax weyn ma ahan, haddii wax weyn aad ka dhigatid adigu laakiin way kugu noqonaysaa. maxaan rabaa marka inaan baro, maxaan idin rabaa inaan idin baro? honno honno hadal maaha, hadal maaha, hembererse arag maaha, arag maaha, honno honno hadal maaha, hadal maaha, hembererse arag maaha. been baa barateene, honno honnona hadal maahan, hemberersena wax arag maahane. wax walboo jira way soo afjarmayaan, wax walba waqti bay leeyihiin ay soo afjarmaan. qofku wuu socon saacad baa ku dhamaata, wuu dhintaa, waa la xabaalaa. qofka bini aadanka ah marka gabadhaas baan ka hadlay, balaha layga rifa, waa lay caayay social media. walaalkay aniga ila dhashay abti ilahaa asagoo aniga baalaha iga rifaaya. so wixii markaas anigii asagana dhex yaalay buu arkayay walaalkay, laakiin wuxuu kan dulmiga uu dadka ku hayo ama asaguba ka baqaayayba oo la haysto u ahaa waa un midkood. adigu si kastaba ha u ahaatee waqti dheer baan isla soo qaadanay, waa isdacweynay. anigu ma dacweynin, strin order ba iga soo qaaday, maxkamaddii baa la gaaray. anigu waaba diiday in maalintii la heshiiyo. haddana ninkiina loo saaray baan yiri maanta ogolow, waa yeelay. anigu dadka beenta yaqaana ama ku laalaabtay ma ihi. qof strin order kaa haystana meel baan intaan la fariistaan anigu la sheekaystana ma dhacdo. sharciga waa inaa barataan marka wax la idiin sheegayo. strin orderka markaan kala haysanay qofna qof lama hadli karinin, asna ilama hadli karin, anna lama hadli karinin, laba gees baan kala fariisanay. danna markii la gaarayna waxaa la yiri hala soo fiiriyo in la heshiisiin karo. heshiiskii baa lagu guulaystay. social mediahan soo wada galnay, video baan iska soo wada duubnay. gurigayga erayadu ku hadlaayay way ku taalaa, youtube-yaday ku jirtaa, kaygana way ku jirtaa, kuwa kalena way ku jirtaa, facebookiisana way ku jirtaa. fiiriya, wuxuu yiri wixii soo maaga mms aniga hala ii soo diro, annaga baalaha ka rifayne soo kalmadayga isticmaalaya. anigu marka diyaar uma ahayn in qof aniga dartay loo dulmiyo, in aniga qof i difaaco oo aniga ii difaac ii noqdo
oo dadka inuu ii caayo iyo inuu dadka ii maago iyo inuu dadka aan ku adeegto oo ummad aan dulmo anigu diyaar uma ahayn. anigu Facebook meeshii baan live la galay, waa kasoo dhaqaaqay, go-aan baan qaatay. hadda ka horna waa iga maqasheen qof social mediaha igula diriray ama horey ha ii yaqaano ama social mediaha igu bartee inuusan mar dambe igu soo noqnoqonaynin. in badan gabadhii ubax waagii aan isku dhacanay oo ayadu weliba ayadana gabadha miskiinta ah ninkaasaa soo diray waagii oo sheekada ka dambeeyey. waa shaydaan, asagaa gabadhaa soo diray miskiinada. gabar fiican bay ahayd ubax, khayr allaha siiyo, ilaahay ha barakeeyo. waxay keensatay inay apologize bixiso, waa ku kala tagnay. laakiin ninkaani araxdan ka jabay buu yiri maalintii ubax kula heshiisay. asaga iyo Puntlander iyo Allah baa iiga markhaatiya. qof Allah markhaati been ku gashaday asaga maalinta qiyaamaha ka sheekaynaya. anigu asaga ruuxadiisa iyo Puntlander iyo Allah subxaanahu wa ta'aala baa markhaati ii ahaa inuu yiri gabadhaas maalintay naga tagtay araxdan ka jabna oo ay kula heshiisay. kow waan kala tagnay 18 waxaan maxkamadaas lahayn July 19 July message-keedii Facebook baan soo saaray. haddana again 19 message-keedii Facebook baan soo saaray. haddana 20 Facebook baan soo saaray. qofna inaan la hadlo waa diiday. juulaan u wacay maalin waxaan ku yiri kaalay arag gabadhaan isoo wacaysa ayadoo ila fadhiday dhowr jeer isoo wacdo. indhaheeday saartay kala hadaloo ka waxay ma la hadlayaan ku yiri. sidii baan ku damiyay waa iga tagtay. reerkii ninkii saas ahaa ka bacdi meeshiiba wuxuu ka bilaabay ilaa asagii waxaa la yiri istrin order kama agabsakaysaa le waxaad kala haysataan, qofna isuma dirsan kartaan, iskumana saqajaami kartaan. inuu ii soo diray meel walba uu galay, inuu faranka galay, inuu ninkii garam ahaa galay, inuu dad yaryaroo masaakiina baalkeeyey, in qof walba social mediaha qiiq ka kacay, in qof walbaba icaayayay. haddana asagaa wuxuu dhan ka dambeeyey waa ogaa. waxna kama oran karin, waxna kama oranaynin, waa iska aamus. wixii oo dhan isku soo fuuqsoo gabar baa maalin maxkamad ii raacday. maxkamadda gabdhaha ila qabsaday ee aan kasoo guulaystay ee aan social mediaha soo saaray asagaa soo diray gabdhahaas masaakiinta, asagaa soo lugooyey. waqtigoodii buu ka lumiyey. wixii walwaliyo ku soo gaaray wariya hadal waqtiga ka lumiyey cabdee baa wad looga dhigay, cabdixakiim baa wad looga dhigay. gabdhaha masaakiinta asagaa lugooyey. waqtigoodii buu ka lumiyey. caruuraya yar bay haysteen, niman bay haysteen, nolol bay haysteen, way shaqaysanayeen. lifekoodii buu ku ciyaara inuu yiraahdo ana idin garab taagan. lawyer buu inta u qabtay buu lawyerkoodii wuxuu yiri midna waxaanu ahay lawyer, midaana maba aqaano lawyer ma ihi. oohin baa ka dhacday meeshii. waxaasoo kale waa keenay waa asaga. waa maalintii hadda u dambeysay. calaa ayati xaal maalintii ugu horreysay maxkamadda tagay gabadha ii raacday maxkamadda buu wuxuu istaagay inuu baalaha ka rifo. annagoo kasoo baxnay oo aan daqiiqad aanan kasoo dhaqaaqinin buu telefoon ku bilaabay bac. maalintuu gabadhii ku bilaabay baa waxaa soo garab istaagay nin la yidhaahdo siyaad khadiijay kala tageen. caruura isu hayaan, waa dad adhalti ah. gabadhaasu social media iyo bahalkii midna ma aado, siyaadna ma soo galo. laakiin siyaad dadba hadda waxay maantadaa ninbaa wuxuu igu lahaa laba qabiid laba dad baa idinkala wata. waa waxyaalaha laydinku sheekeeyo, laakiin aniga qofna ima wato. so gabadhaas anigoo gurigeeda kasoo hadlaya imaydna arag, gabadhaas anigoo ka baqbaqsiinayo imaydna arag. laakiin gabadhaas aniga way raacda. haddii xataa aan u hadloondho maxaa laga rabaa, because dhibka soo gaaray in sawiradeedii banaanka la dhigo, in banaanka laga caayo, in caruurteedii banaanka lasoo dhigo, in gurigii ninkii uu kasoo saaray shalayto oo uu naagta kala degsaday gudihiisi laga soo caynayay. idinkaa markhaati ka ah oo cid maantayto diidaysa malahan inuu guriga siyaad kasoo hadlayay oo gabadhaas laga caayayay oo annagana laga caynayay. soomaaliduna dhaqan bay leedahay, dhaqankeenuna waa horu dhuma. waagi maaragta la kala baqi jiray ama la kala xishoon jiray waa horay ahayd. hadda dhaqan ma haysano. so gabadhii sidii baa lagu maagay, aniga sidii baa la igu maagay. gabadhan siyaad wuxuu yiri ninkan waryaa waxaa doonti samee, because ilmihiisii asagu dhalay siyaad buu yiri social media saar.
social media waa public saar buu yiri marka nin gabadhiisi asagu u dhalay gabdhihiisi yarka ha u dhalay nin ka xishoon waayay horta gabar uu qabi jiray kama xishoonayo laakiin waxaan rabaa inaan hal idin baro Soomaaliyeed markaan saa idin ku soo labisto oo aan isaga kiin waraminin oo waxaan ahay aan idin sheeginin because waxaad iga taqaanaan ma lahan anigu lifekayga 6 years old baan ka soo bilaabo hooyada iyadoo sanad aan jiray aabahay inuu furaan idin ka soo bilaabo 6 sano in la igu faro xumeeyaan idin ka soo xijiyay in aan waxba qumandaamin macallin dugsi haddana xumeeyaan idin ku xijiyay haddana again A to Z baan hadda aan wali dhamaana gaarinin lifekaygi baan taxana kaaga soo dhiga halkaan marka aniga wax la igu caayay ma yaalaan soo ana cay hadaan lahaa iyo ceeb hadaan lahaa iyo xumaan hadaan lahaa iyo hadii adigu waxaad ceeb u taqaanay iyo wax allaaliya waxaad aad ka baqaysid iyo waxaad hood qarisid anaa miiskaan kuu soo saaray soo aniga wax la igu caayay male laakiin maxaa la aaday in ilmahaygii la raadiyo marka qof ilma lehi oo ilmihiisa ka naxaya iyo qof ilma leh oo ilmihiisa u naxaya baa horta hore ilma ka naxa qofaan ilma dhalininba oo waxay tiiba aan ilma ka aqoonin ayadoo mar walba raggu aysan ilmaha dhalinin oo naagu ilmaha dhalaan haddana nimanku wax ma dhalaan waxbaa ka yimaada ee urma yeeshaan inaas ma nuujiyaan ee ma walacaan ee ma fooshaan dumarka foosha ilaahay baa naga dhigay waa Niger laakiin niman waxba waligiisba loo dhalinin oo aan raxmad ilmood aan lahayn waa Cabdixakiin waligiis carruur maxay Cabdixakiin oo uu leeyahay maanan arkinin siyaadna 3 gabdhood baa ka dhacda 3diisi gabdhood laba kamid ah social media soo saara iyo biilka uu siiyo oo dawladdu waliba khasab uga qaadayso social media soo saara marka cunug kale inuusan ka naxaynin de idinkuna waad ogtihiin aniguna waa ogaha wuxuu meesha ii soo saaraya inuu iga dhigo aniga inuu la haysta iga dhigto oo hadhowna magaa wadanka la iga aamusiyo anigu waxaan sheegay inuu siyaad inuu ashabaab yahay maxkamadaha aan la aadana siyaad inuu ashabaab yahay anuu kuma ducaya ee Cabdixakiin buu igu soo diray anuu kuma mudacayo kow Cabdixakiin wuu i caayay kuma mudacayo Cabdixakiin inuu ashabaab yahay kuma ducayaano waa kow siyaadka marka muxuu yahay horta siyaad baba xumee siyaad aniga hay xumeeye siyaad caruurtiisa banaanka horta ha soo dhige siyaad horta muxuu yahay horta waxaani waa warqado xaas aad u jeedaan waa waraaqo wadankan qof kastaba wuxuu leeyahay qof walba dhiiqu leeyahay waxaas waa report siyaad aniga horta waa isuud gareeyay Cabdixakiinna waa isuud gareeyay oo siyaad iyo Cabdixakiin oo wada socdo isku lifaaqan baa isuud gareeyay anigoo MMS ah anigu hooyo single mother aan ahaa hooyo u hadasha hooyo dulman baan ahay oo dulankeeda la soo fariisatay hooyo markii dambana intaasoo qof oo dulman la soo xiriirtay baan ahaa intaasoo qof oo dulman aan dulmigoodii aysan dadka u sheegan jirin oo ay qarsanayeen u hadasha baan ahay hooyo waxaan ahay dadka dulman u naxda ma ihi hooyo dadka dulanta malaa'igta ma ihi bili aadan baan ahay khalad waa iga dhici karaa laakiin kuma talagalo inaan dad dulmo kow siyaad waa aabe caruur leh ganacsado ah magaalada markaad ku aragtaan beautiful ah anigu arag uu leeyahay maalintii dhaweetoon gabdhaha maxkamadda isku haysanay baa waji uu leeyahay intaasaan Minnesota deganaa waligay wajigiisa ma arag Khadiijana maalintii maxkamadda aan ku ballamaynay inay biri oo kale ii raacdo baan arka wajigeeda iyo maalintii maxkamadda aan tagnay iyo intii ka dambeysay siyaad waji uu leeyahay masawir uu leeyahay mooyaane waji uu leeyahay waxa iigu horeysay maalintii dhaweeto maxkamadda aan gabdhaha aan u aaday oo wax ka khuseeyo aysan jirin gabdhahaas dhalashana uusan u soo raacinin dhaxdinna uusan u soo raacinin meel iiga yimidna aan aqoon boolo xoofta iga dheh bam oo haddana bam barateene balaha la iska rifaaya meeshaan wax la kala qarsanaayo ma lahan okay who is siyaad xuu siyaad qabtaa siyaad magaciisa ma sheegi karaa siyaad ma kuu sheegi karaa kaan hadda anigu ka hadlaayo siyaadka maanta anigu aan ka hadlaayo waa siyaad
وسياد last name كيسنا وعبد الله كو سياد عبد الله وأنا كان ما أنت كهلا يعني سياد هو بزنس مان سياد وانن عرور له سياد وانن ميل دقن سياد وانن قناع صدقة سياد وانن دادكو مركي أركان وأركان قاب كيسة مركي أركان نن مجور وانن أي أركان نن لعك هيستا إنو يهي وانن أي أركان إنو يهي نن ويل education oo dadka qaarkiis Dr. Siyaad ay dhahaan waa nin baabuurka ugu qurux badan magaalada wata markuu soconayo waa nin businessman oo America ku nool Siyaad waa reer Kenya Siyaad waa reer Kenya laakiin Mareykanka deganaa intuu deganaa saanu ma ogi laakiin maxaan rabaa سياد مكلي جايبه الدعوية أو السود جرية مس السود أنا ورت مكان ودن كانوا تجوني تذكر مسلمين تهاي وحمد سود جرية كما أقول نقف مسلم إنه وح سود جرية أنا وأنت أمريكان تجوجي سود لي سود جرية كان يقول رئيسي وحنا قاتي وين إنه يتاي سودكو because أنا حركة كذا كم بني بالسود سود جرية يقف بالسود جرية قدر العقل هالموجود إلا سود جرية قف عادي هو السود جرينا أيه هو يهالكافر ده السود جرينا أيه وان وحوين بيكون نقطة سوح مركي كوجو عصبيين سيدا مركان هلا هيو هذا لا إذا قاركن إن بدن أيجو أدقيهين بأنا جن أيجو أتكات كو سياد هو يسود جريء لكن ما كل جايبو سود جريء سياد ما سياد هل كان وحى كصفن أنت أسوقف بهالكاسفن ما قعيسنا هالكاسوكي الله سياد انت اسوقف بوسود جري وهاو ماني بيبل وكو iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix waa adiga wax isku soo noqonaya laakiin ma shan ba meelahaas bis lix ba weey intuu qof suud gareeyay hortay ko halkan waa tan suudka dadka uu suud gareeyay siyaad waxaan soo wadaa marka uu lagu qabtay falal la xiray waan soo wadaa waan keeni doonaa siyaad aniga Mareykanka 21 sano aan joogo waligay tigir ma qaadan bam وهذا بم 21 sano aan joogaa clean baan ay rekorkayga guriga hooyo iska fadhiday hadda ma ihi anigu isbarmad watan magaaladan gaari ku wadan jiray so nadiif baan ahay parking ticket illa isaara intaan meel dhigto ka soo daaha parking ticket la isaara ma ahan tigir kale waligay ma qaadan siyaad waxa soo warqada 64 case oo ah criminal traffic aad u jeedaan wana kaas numberku 64 64 waa u jeedaan وكوا ساعة تحن 64 jeer baa tigir iyo bahalkii qaar lagu arrest gareeyay waa businessman 64 jeer muxuu sameynayay marka 64 jeer la arrest gareynayay muxuu sameynayay he's a businessman right I'm MMS laakiin waa hooyo Soomaaliyeed marka ninka suudka ku qaba ee dharka ku xiran ee professionalka ah ee maalin walba maxkamadaha taagan ee maalin walba wax taagan horta waxaan oo case u leeyahay because ana la soo baxay waa public waa la soo bixi karaa faakan public uu yaala daad u qabtaan ma milyan wiilkeeda la xiray iyo wiilkeeda saan la yeelay ay big deal idin la tahay ama ay wax tahay ninka dhan oo professional manka ah oo ninka weyna oo gabadhiisu ay tahay almost 20 years ku sii socoto labadiisa gabdhood oo yarkaana maxkamadaha soo dhigay waa ninka intaas oo jeer lagu hayo criminal record oo faktabka la recordkiisa oo dhan uu yahay
oo haddana aan ahayn American citizen. qaladaadka intaa leeg ninka ganacsadaha ah ee galaya ee ama galay honno hadal maaha hembarirsi arag maaha honno hadal maaha bamba bartana balaha la iska rifaaya soo muxuu isu qabaa inuu yahay dadka inuu ugu koreeyo but haddaad adigu asagu uu soo diro Cabdixakiin oo uu dhaho hala caayo Siyaad, this is the birthday-giisa. So anagaba birthday-ga iyagu social media-hu yaala. He is waa kaasa. Waxa waaye birthday-giisu oo 4/2/1974. magaciisa waxaa la dhahaa Siyaad Cabdullaahi baa la dhahaa. Waa businessman. He got a business. maxaa markaad business leedahay? Anuu business woman baan ahaan jiray. magaalada Minnesota store baan ku lahaan jiray. guryana waan ku lahaan jiray. very good career-na waa ahaa. maxaan marka sameyn jiray? waa isdhowri jiray. gaari payment aan watay. gaariga maanta aan wato 12 sano aan wataa. maxaan ku joogi jiray? wadankan lamow driver baan ka noqday. school bus driver baan ka noqday. waligay tigir ma qaadan baan idin iri. fura indhihiina. wadankan focuska lagu saarahay cidaana ku nicib, cidaana kugu saara, cidaana xoolahan qofka wuu helaa. xoolo waad heli kartaa, wayna ku dhaafi karaan, wayna kuu joogi karaan. laakiin magacu ma haro. neemkayga maanta haddaad i raadisid, neemkaygu waa clear. So why? Because waa homekaygii. Because American citizen baan ahay anigu. gurigaygii labaad waa gurigan. because inaan sharcigayga isaga ciyaaro ama iska wasakheeyo ma jeceli. cunugaygana anigu uma taliyo. waa wiil yar, waa dhalinyaro wiil yar oo 22 sano jira. wax weyn ma ahan in inta la xiro la soo daayo. laakiin adiga waxaad u dhowdahay almost 50 ku dhow maxaa waxaan oo criminal record maxaa ku saaray? maxaa intaanoo qof oo suuda ku saaray? streaming order-ka baan soo print garaynayaa inta uu qof streaming order ka qaatay. what is that businessman marka? seebu kaasu aabba ku noqon karaa? see caruurtiisaas beri quality life fiican iyo aabbahayaa waxaan ahaa, aabbahayaa lacag lahaan jiray way dhihi karaan. laakiin aabba fiican oo ay ku daydaan oo meel magac fiican u dhigay ma aha. yes or no? idinka rabaa? no. aniga marka waa la caayi karaa, wax waa la iga sheegi karaa, ilmahayga waa la caayi karaa. because qofku bili-aadanka ahi hadduu kaa fiican yahay waa in lagu caayaa. saw rasuulkeeni Muxamed calayhi salaatu wasalaam anigooban iskala mid dhigaynin markii dacwada ilaahay kusoo degaysay oo risaalada u qaaday oo qur-aankii kusoo degayay maxaa la lahaa? siirada nabiga waad akhrideen calayhi salaatu wasalaam in lagu sheegay rasuulkeena inuu gabiyaa yahay, in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay inuu yahay mataqaanaayeeto inuu gablan yahay, in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay inuu yahay mataqaanaayeeto a lot of things. so qofka bini-aadanka ah oo bini-aadanka ahi wuu khaldami karaa. laakiin adigoon khaldamin ba haddana khalada korka lagaa saari karaa. ninkan marka maanta wuxuu ii suud garaynayaa wax kale ma ahan. waxaan ka hadlay al-shabaab, waxaan u hadlaa dumarka, waxaan u hadlaa caruurta. dumarka wuu nicib yahay. Siyaad dumarka ma jecla. so inuusan dumarka jeclayn waxaad ku arkaysaa caruurtiisa wiil kuma jiro. hadduu wiil ku jiri lahaa wuu dhowri lahaa. gabadha iyo caruurteedaba wuxuu u dhowri la-yahay waan wiil ku dhex jirinin. dumarkana wuu nicib yahay. niman badan oo raysis ah oo dumarka nicib baa jira. kuwa dumarka nicib buu ku jira. naag baa codkeeda la dhegaystaa ama magaalada dhan haysata ama wadanka dhan haysata buu Siyaad aniga iigu soo dirayaa Cabdixakiin uu ii dacweynayaa oo ii suud garaynayaa oo cadowga iigu samaynayaa oo u gubanayaa oo gabadhii i raacday oo maxkamadda ii raacday uu waxaynayaa oo naagaha u ururinayaa oo raba inuu tuuto inta ii sameeyo inuu i wareeriyo. siduu u diido
inay dumarku hadli karaan, inuu kasoo horjeesto sharciga maraykanka oo ah freedom to speech, inuu kasoo horjeedo wadankan waxay dhahaan lady is first, laakiin dumar waa un dumar, ayaguba xuquuq badan oon leenahay mana siiyaan, laakiin Soomaaliya ka fiican yihiin 75%. so because gabdhahoodu xuquuq bay helaan, so anaguna gabdhahoodan ka midnahay hadda, so hadda halkaana ku noolaha, so gabadha maraykanka xaqay leedahan leeyahay because gabar maraykan aan ahay. Kow taas horta waa tan Siyaad, inaan Siyaad ina baro wuxuu Siyaad yahay baan halkaan usoo fariistay galabta. Siyaad Siyaad waa ninkan, waa macalinkan, waa ninkan intaas oo criminal record haysta 64 unbelievable qof dhan oo weyn oo adulti ah oo 64 record ugu jiraan systemka. Subhanallah, waa very tough way, waan wareeray madaxan xoqda, oo intaasoo qof suud gareeyay, oo intaasoo qof stream orderka dadkooda haddaan idiin keenan aad yaabaysaan, oo intaasoo mataqaanaayo oo lagu hayo dambiye oo ah kale oo lagu hayo oo lagu xiray 2 jeer xariga galay oo aan keenaya iyagana. Horta hore waxa weeye adigoo guri dhala adegan, horta guri dhagax lama tuuro, horta uu ku fashilma. intuu lahaa dadka ii cay caruuraha cay dadka cay anigu cay ma lihin. Okay, gabadhayda she's beautiful, wiilkayga he's beautiful, wiilkayga kale he's beautiful, waxa uu sameynayana wax magacooda wax u dhimaaya ma ahan, waa wax magacooda kor u qaadaya. So waxaa dhashay princess MMS. هنو هذا الماها همبرسي أرق ماها هنو هذا الماها همبرسي أرق ماها برنسس بعد الشيء. سو عنق برنسس الشيء، هداد قيلسد إيه هداد بوقدد إيه هداد دعوتد إيه هداد واحد عدد. انتان ساعة أرض أنا آموسن أو ساعة إسكسيناية تان ساعة أرضه بانساعة كوسو صارية سيمبل 64 criminal case. سبحان الله، مركاسو عاية يا عرور، مركاسو عاية يا إلمو، مركاسو عاية يا برنسس، مركاسو عاية يا ضد، مركاسو ضد عن level كيس ده اسكو level. سو منا قارب بوتا منا والله منا ويلشير بوتا وسام كوسمت كان لغا كرا مسكحدا لغا كرا. so what's the difference labadood؟ marka aniga MMS ahaan waxa aan rabo inaan ka hadlo soo dhawa waa ii dambeynaysa, laakiin waxaan galabta rabay inkastoo aan ka jeclahay mar dhowna aan Facebook-ga kala rabo inaan galo. So dad badan baa raba inay soo galaan oo daawadaan. aan rabay inaan idin tuso who is Siyaad. Siyaad waa ninkaas, waa macalinkan. marka anigoo MMS ah meel walba, goob walba, dariiq walba, barashada Siyaad baan horta idin barayaa. anigu Cabdixakiin waxba ma aqaanaba, soo waxaan waxba u aqoonin, soo adeerkiisu san dhaafin, soo gabadhiisibu san dhaafin, soo gabadhii shala uurka lahayd oo magaalada maraysay oo intaasoo bilood ahayd buu cunugeedii ku qabsaday oo ninkeedii iyo gurigeedii khalkhal geliyay oo cunugii markii DNA laga qaaday uu cunugii yeelan waayay. oo maalin walba oday buu ku raran yahay, oo maalin walba gabadh buu ku raran yahay, oo maalin walba gabadhii qof common u qarto ceyrsanaya, oo maalin walba waxbuu record garaynaya oo controlkiisa lunsan. oo kan 3 telefoon iyo 4 telefoon waxay tahay 3 baan kula anigu hayaa 4 telefoon ay tahay waa u malanaya buu haystaa. maxaa kansoolida ka qaaday? maxaa kalsoonida ka qaaday? muxuu markuu soconaya saa u dhahaa? maxaa dhaqanka u diiday? muxuu dadka inuu ka xishoodo u diiday? maxaa markii la arko in lagu farxo u diiday? because qofka saa u dhaqmaayo wax lala hadla mu ahan. qof kasta wuxuu leeyahay kiiba reerahooda markaan maalin maqaada halkaas aan tago ay arkaan in kaan qof walba uu habaaraya. soo habaarkaani adduunka xataa kugu gaar way akhru kaaga horeeyo soo moogid. marka Soomaaliyay I'm not done yet. Siyaad halkaas aan ka wadaya sheekadiisa. Siyaad sheekadiisa halkaas boorsha soo dhawow ma sha Allah. Siyaad sheekadiisa halkaas aan ka wadaynaa. وكاسيات سياد كأد مقليسان السود كقبة يا إجاري الرانجر روفل كاوتا إساء السود تاجا مركز أركتان مان كويك
64 felony igade bum وهذا بم وهذا بم لح لو سود igade ودل سود متقانا سود قريي استرين أدركو اسمه بيقانو وكينايا أيضا هكذا كينايا مركا اسبرا شفرا أنيجي يا سياد با اسكين باريني أنا وايكن أصنا واكن بم وهذا بم بم بابرتيني مالها أنا ليس صادق أيا وحواي وبابليك على صديقرا هذا هو سود قريسنا مركا دي سود كيف صعده marka siyaad waa ninka gabadhiisa ka xishoon waay waa ninka gabadhay kala tageen ka xishoon waay waa ninka gabadhii dumaashidiisa ahayd ka xishoon waay waa ninka sadohdii ka xishoon waay siyaad hadda ka hor sadohdiisa wuu soo duuba gabadhaada intuu yiri oo lala hadlay buu soo rekorgareeyay siyaad iyo Minnesota ha isbarteen kala Kenya waa ka xun tahay dadkan waxa ku dhacaya dadkeedii because wax ceeb ah way dhacdaa الله ha wadaada loo maro wadyaalaye allo wardheer dal wanaagsanaydaye wardheer wiil baa ka yimaada war wadaada loo maro wadyaalaye allo wardheer dal wanaagsanaydaye ha guuxaada laga keenay galbeeday gabdhow gaarba siiman ma ogalnaay ha waliga dhaanta ma tuntee barasho wanaagsan siyaad iyo next YouTube-kan wax soo geliyay subscribe iigu sameeya sidee dayac mataqaanaa sidee u caawinaa caruurteena barnaamij ka hadlaaya oo wax badan idiin taraya oo albaabo badan idiin furaya baan soo geliyay YouTube-kayga marka kaas next I'm not done yet kan soo gelayaa Facebook-ga iga dheh haddaan Facebook-ga soo gelayaa waxay siinaysaan 5 minutes Facebook-ga iga dheh kan waa page-kii Facebook-ga caadiga baan soo gelayaa saasaan rabaa inaan galabta u wareego oo idin baro barashada siyaad baan wadaa soo qofka marka la dooranayo waa in la bartaa sooma de waan dooranaynaa maxaan u dooranaynaa de ama waa casilaynaa ama waa caleema saaraynaa marka casilaad iga dheh ninka lacagta leh waa kana marka waa inoo goobta dadka badnayd. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.